السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وحن سلام يا ولا ليه قالي وحن كسلام يا سلام محبك الجعيل يوناج يفرحت يفرفناش أنت وكده هانتاي وحن يدلنا يا يسود الدوادة قام فرني يسود الدوادة ويجي فرني يسود الدوادة دول عدين يسود الدوادة دول عدين توصلنا كسود الدوادة أنت بقى أنت أمرك اللي جاي معه سبسكرايب كي يعني يجي لو من شيرت يعني يجي لو من لايكتا يوم تقنا يكون تيجي أنت بقى أنك أركو waxaatiin baalash iyo garbaha aan ku duulno dadka naga Soomaaliyeed dhamaanteen farkal iyo afool ma dhaqdo dhamaanteen hadaan isku xirnaana ayaan wax gaaraynaa isku xirnaasho waa wax noo muhiim ah aan mataqaana isku tari karno waxa aan ka codsanay inaad subscribe YouTube-kayga saartid hadii aad tahay qof iga mataqaana shacbiyad badanna aad ii share gareysid ee ugu gudbisid asxaabtaada intaas marka aan ka imaado tuugsiga sharciyeysan marka ka soo gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin mataqaana social media xalay dhex socotay aroos gabar yar iyo oday waayeel ah maxay tahay waaye sababta aniga aan uga hadlayo ma ahan inaan ka xumahay dhismaha qoyska Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku soo biiray mataqaana guryaha muslimiinta in aan ka xumahay ma aha macnaheedu waxaan leeyahay iyaguna hambalyaan leeyahay calaf baana wax kastaba ka adeega ayaan aaminsanahay markii calafka laga yimaado waxaan leeyahay reerkaas horta dhisma oo dhaqma ayay tirada Soomaalida dhisma oo dhaqma aan leeyahay inta markii laga yimaado maxay tahay sababta odayga waayeelka uu guursaday gabadha yarka ee 16 sano jirta maxay tahay sababta gabadha weyn ee u guursan karin wiil jira 25 sano بالمثل ما أهان ويل صدحي تمسنا جرو ما أهان ويل صدبي تمسنا جرو ما أهان ويل صدقي تمسنا جرو شن إلى 20 سنة لح إلى 20 سنة إلى 60 سنة ويل جرو حدا جورسته قبل 16 سنة جرتو وحال لي هاي ناكوين بجورسدي ويسحرتي ويشي ويصاد علي سحر بيكويستا ريركيس موجلا وأبيز كرينيسا ويل كان حبس بوكجرا Soomaaliya waxay idin leeyahay xaqa aad ka qaadaysiin walaalihiina iska dhaafa dumar waxa idin leeyahay waxa ku dhiirataan in aad hadii aad u baahan tahay mataqaana macnaha aad tahay qof madax banaan ama doonay inuu guursado qofka aad doonaysa inaad guursato haduu yahay qofka yar wiilka yar haduu yahay fadlan ku dhiiro waana kugu soo dhaweynayaa maxay tahay marka sababtan kugu soo dhaweynayo waxaan doonayaa inuu argudid gabdhaha yararka ee masaakiimaha ee laqmaday aanan helin noloshooda qof ay ku faraxsanaadaan bilmatal maanta labada qof marka isla egyihiin qofka waxa dhigi kartaa waxaas ii soo qabo halkaas waxaas iiga gee waxa horay suuq marka u soo socdo noo soo gad laakiin oday waayeelay aabaha ka weyn ee doonaysa reert inaad weysada ugu geysid ee agtaada mataqaanaa aadan farxad ku dareemeynin waxba mataqaanaa marka guur lama dhigi karo laakiin waxaan leeyahay fadlan waalidiinta Soomaaliyeed ayaan ka codsanayaa 1 iyo 2 iyo 3 ba in ay ka waantoobaan ayadoo diintanaduna ay qabto qofka mataqaanaa in aan la qasbin guurkiisa oo u madax banaan yahay siiba gabdhaha waxay u madax banaan yihiin meherkooda meherka intuu ka yar yahay uu ka qeyr badan yahay gabar kasta way garan kartaa taasna diintanada sheegaysa da'aduna waxay noqonaysaa mataqaanaa shayga labaad bay noqonaysaa macnaheedu ma aha qofka duu ka weyn yahay diinta inay tiraahdo ma geeyo laakiin macnaheedu waxay tahay hadii ay gabadhaas maanta ku doodo ma doonayo ninkan way iga weyn yahay inay sax tahay ay diidi karto ayna ku dhiiran karto laakiin waxa waaye dadka hadda la guursanayo waa gabdho yar ma hadli karaan waxaan doonayaa markaas sababta maxay tahay gabdhaha waaweyn loo xaganayo ee loo dhaha mataqaanaa ninkan way sixratay intay geysay waxaan arkay gabar walaashay ah aan mataqaanaa barnaamijkeeda ama qisada ku dhacday aan aad uga xumaaday majaajileystaheena ah abwaanadeena ah fanaanadeena ah Safiya Tusmo dadka Soomaaliyeed marka aad fiirsid commentiga ay bixinayaan meelaha soo dhig sawirantooda waxa arkaysaa 90% maxaa u geeyay ilmaha yarka ee foodeeraha ah oo odayga maxaa u geeyay gabadha yarta alabaalaabeed ciyaaraysa waa su'aal isweydiin mudane Safiya Tusmo ninkaas waxba kama yareen ilmaha yarka ah mataqaanaa nolosha maanta ugu horeysay halkaas laga riday sababtee maxaad u aragtiin gabdhaha da'dooda ee aad u arki laadiin odayaasha da'dooda su'aal isweydiis mudan waaye gabadha labaad ee ay social media ku arkay ee markasta la xagta ee ahna qof degan ee wanaagsan waa Esther Kurlibaax gabadhaas waxay haysataa nolol ku faraxsan tahay waxay haysataa wiil ay isjecel yihiin ay haddana ubad u sido ilaahay ubad khayr qaba ha kala siiyo ma ahan macnaheedu inaad gabadha da'deeda fiirisid laakiin waxa weeye qofka ay isla nool yihiin ma yihiin laba qof oo isfahansan ee nolosha mataqaanaa ku faraxsan nooc kasta ay tahayba
haddii oo maantayto mataqaanaa gabadhaas ay guursan lahayd ninka weyn waxaa laga yaabaa inaad ugu hambalyeyn lahayd haddii ay guursatay maantayto horta da-du waa number haddii ay guursatay wiil ayada ka yar markay ugu badato dee sanado 3 iyo 2 iyo 4 uu ka yaryahay ma ahan inaad ku xagatid gabdha waxaan idin leeyahay social media markii kommentiyaasha la eego waad bixisaan waxaad tirahdaan maxaa u geeyay idinka isdifaaca idinka isu danqada idinka mataqaanaa isdhiirigeliya waxaan leeyahay gabdhaha yararka odayaasha waayeelada lagu darayana guurkooda iyo noloshooda halaga digtoonaado mataqaanaa ay iyo mustaqbal bay u baahan yihiin nolol qurux badan bay u baahan yihiin oo ifaysa qofka ma aha noloshiisa marka uu dhalinyaro yahay in mugdi la geliyo hadhow gabadhaas qalbiga ka daqoobaysaa niyadda ka daqoobaysaa mataqaanaa ma noqon karto nacamti qofka asaageed lama soo meel istaagi karto sababtoo ah waxay tahay qofka qofku la nool yahay wuxuu yahay noqdaa dhowr sano ka bacdi waayeel bay noqonaysaa gabadhaas yarta ah aad iyo aad baan oola qiiraysanahay nabarka kugu dhacayna mid qadar ah Allah kaaga dhigo waxaan leeyahay dee Soomaali Maxamedi gabdhaha waaweynkooda waa idinka sheegaan ragga weynkooda soo sheega may maqashaan gabdhaha weynkooda liin daba dhigay ragga weynkooda hala soo sheego odayaasha nagala cishto oyna ahayn waxaan ugu baaqayaa gabdhaha waaweyn aan la qabin inay guursadaan ilmo yaryar ee haddeertan 17 sano jiro sababta maxay tahay asaas u leeyahay ma fahmin cidda tiri dumarka waaweyn ayaan la guursanin ragga waaweyn gabdhaha yaryar ha guursadaan aanu taas ma garanayo Soomaali meesha dhaqan u tahay ma garanayo dadka ajaanibta ah Soomaalida aan ahayn dad qof yar waxaad arkaysaa islaan weyn oo wiil yar guursanaysa haddana saasay taa cid xaganaysa ee warwareejinaysa ma ahan gabar Soomaali ah haddii guursato nin ajnabi ah waa la xaganayaa wiil Soomaali hadduu guursado naag ajnabi ah waxaa la leeyahay welcome dumaashi aan warkiina Soomaaliya ma fahmin uljeedkiina wuxuu ileeyahay inaad gabdhaha u socotiin gabdhahana waxaan leeyahay isku tiirsanaada meel kasta aad dunida dacaladeeda ka joogtaan dee warkiina hadduu yahayna lacagtu waa lama horaan dee waxba leen kama qaban karo lacagta dad noloshaada iyo farxadaada lacag aad ku bedelatid wax laga qaban karo oo qabtaada cid ay u galayso ilaahay uu dama jirto waxa jirta hees tiraahda ninkii ladan baa dunida xaqiis loo leeyahay muxuu loof maran taraa runtii loofka maran hadii ay tahay qof aad isku faraxsan tihiin de wax uu tarayaa laakiin haduu yahay qof aan isku faraxsanayn laftirkiis waxa uu matarayo waxaan 1 iyo 2 iyo 3 aan ku leeyahay inta aad yar tahay ee dhalinyarada tahay noloshaada waxay ku faraxsanayn in aadan ku qasbin noloshaaduna aad adiga xor u tahay aad u madax banaan tahay haddii aad aragtid gabar yar oo saasoo kala ah maartay nolosheeda la farageliyay de faragelin baa waxa maqli jiray faragelin shisheeya Soomaaliya lagu hayaa hadda tan waa faragelin dumar ee lagu hayo dumarka Soomaaliyeed ee gabdhaha jiilka soo kacaya mataqaanaa da'yarteena anagana bedeli lahayd faragelin lagu hayo way oo qaawan oo cad oo qayaxan waxaan doonayaa faragelintaas inaanu ka hadalno oo ka hor imaano diyaar kuma nihin 2 ilaa 3 haddii nagala deyn waayo يا أخي أنا قال جوجي هدينا قال جوجي ما ترتيب المينا هالقو لكن واحد اسكسو ضبط عاي همبلي أذي وين همبلي وين هذا المير نقول عافية يا أخي صل على النبي يا هديك كله ده قبل إحنا جواوين إنما كيرك جرسنا يفرح نوقع هذا وحنا لو ريجي سنة هرت سومالي وحنقروها عد سحر كيا أو شيء غير سومالي قف مضح لغير قبنا يا حلي والي إلى است qof ka weyn ama qof ay isjecelihiin buu guursanaya waa la sixrada waxa is sixrada meeshan ma jiraan teeda kale mataqaana waxaan anu ma fahmi Soomaalida gabdhow hadii aad mataqaana qof aad haasaa wada leedahiin sababta aan ma garanay video call dadku qaaqaawna isku la hadlayaan garanmayo laakiin waxa in kaga waaninayaa in kala talinayaa inayna sameeynin noloshiinana aynan imaanin hadhow social media qof aadan ku kalsoonayna aadan faraha ka saarin waxa noloshaada oo dhan mataqaana qof uu ku kalsoon yahay ma u maleynay inuu jacaylku mataqaana wax been ay hayaan hadii aad qof aad ku kalsoon tahay wax mataqaana la sawir iyo waxaas aad la share garaysid ma u maleynay inuu keeni karo social media unless uu qofkaas ahayn qof danaysta oo aan been ku sheegay ma kala ogaan kartid marka qofkii danaystaha ay qofkii kala soo maahan waxa uu adiga haysa aday kugu qurux badan yihiin aday kugu sharaf badan yihiin dhamaanteen ilaahay mataqaana hana xifdiyo waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryarka ah ee noloshaas hadeertaan la rabo lagu dhiiranayo in la galiyo niyada loogu dhisay lacagtana inaan lacagtu macno lahayn
lacagtu iska dhaafi adduunka dhan uunan macna ku fadhinin ilaa uu yahay mataacul quruur mooyaane una waxba macnaa ku fadhinin noloshiin inta yarta idin dhiman la qaado qof aad jeceshahay ama kula age ah ama kugu faraxsan wax kasta kula fahmi karaa fadlan youtube-ka subscribe saar channelka soo booqo share gareey wax kaste oo free weede wax kasto free ah ii saara dhac ya Soomaali Maxamed Raas Case iyo Raas Kambooni dhamaantiin waa idin salaamoyaa